madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay inuu fahmi karo sababta ay muslimiinta uga argagixeen sawir gacmeedkii muranka dhaliyay ee muujinayay Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa aatee taasoo ka dhalatay cara xoog leh oo ay uga ka falceliyeen muslimiinta adduunka sidoo kale weeraro ayaa lagu qaaday dhowr goobood oo dalka Faransiiska laakiin waraysi uu siiyay warbaahinta Al Jazeera ayuu Mr Macron ku sheegay inuusan marnaba aqbali karin in arrintan rabshado looga jawaabo Cabdiqaadir Yuusuf Cali Caaqilka ayaa soo koobaya warbixinta amurtaasi ku saabsan Cabdirasaaq hadalkan ayaa imanaya kadib weerarkii khamiista ee dad lagu laayay kaniisad ku taala magaalada Nice kaasi oo laga shakisan yahay inay geysteen dad Islaamiyiin ah waxa sii kordhayay khilaaf ka dhex aloosan qaar kamid ah dalalka muslimiinta iyo Macron kaasi oo ku saabsan arinta kaartoonada qaarkood waxay ku booriyeen in la qaadaco wax soo saarka Faransiiska maadaama Macron uu difaacay xuquuqda loo adeegsaday sawirada Atosh horantii bishan ayaa macallin qoorta looga jaray xaafad kamid ah magaalada Paris kadib markii uu qaar kamid ah ardaydiisa tusay kaartoonada Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee dhanka kale wakaalada wararka ee Tunisia ayaa ku waramaysa in laba qof halkaasi lagu xiray si su'aalo looga weydiiyo weerarkii Nice ee uu fuliyay nin reer Tunisia ah Cabdirasaaq wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska ayaa sheegay inay u badan tahay in weeraro dheeraad ah ay ka dhacaan dalkaasi Faransiiska dhanka kale baadari Greek ah ayaa dhaawac soo gaaray kadib markii la toogtay xilli uu xirayay kaniisadiisa oo ku taala magaalada Lyon waxaana la sheegayaa in shakhsiga weerarkaasi looga shakeeyay uu isku dayay inuu meesha ka baxsado balse booliska Faransiiska ayaa la sheegay inay gacanta ku dhigeen ninka hubaysan oo weerarka geystay Cabdirasaaq madaxweynaha Faransiiska ayaa waxa uu sheegay in uu rumaysnaa in falcelino adag ay ka iman doonaan ummadda muslimka ah sababtoo ah waxa uu yiri dadku waxay si khaldan u fahmeen hadalkayga oo waxa ay u maleeyeen uu yiri inaan aniga taageersanahay kaartoonada ama xitaa in dawladda Faransiiska ay sameysay sawiradaasi waxa uu yiri waxaan fahmay dareenka ay muujiyeen waana ixtiraamaya muslimiinta hase yeeshee waa inaad ogaataa kaalintayda haatan oo waa inaan sameeyaa laba arrimood waxa uu yiri inaan sare u qaado xasiloonida iyo sidoo kale inaan ilaaliyo xuquuqda isaga oo la jeeda xorriyadda hadalka ee kuwa sameeyay kaartoonada waxa uu sidoo kale yiri maanta adduunka waxaa jira dad diinta islaamka qaloocinaya iyaga oo adeegsanaya magaca inay difaacayaan diintooda kuwaasi oo dadka dilaya ama gowracaya maanta waxaa jiro rabshado ay wadaan qaar kamid ah dhaqdhaqaaqayaasha xaq jirka ah waa sida uu hadalka u dhigay iyo shakhsiyaadka wata magaca islaamka Cabdirasaaq Macron ayaa sidoo kale sheegay in qaadacada alaabada Faransiiska ee la soo jeediyay ay tahay mid aan u qalmin dalkiisa oo aanan la aqbali karin aad baad u mahadsantahay Cabdiqaadir